Somali Sudanes Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan, daweyn, qalliin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray. U doono daweyntaada oo sax ah. caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wix. si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta Kalamaan fadlan subscribe saar YouTube-kana Kalamaan. war Kalamaanay shir looga hadlayay afka Soomaaliga iyo sidii loo horumarin lahaa ayaa gawar hal abuur oo ka qayb gashay waxay soo gudbisay cawasho waxayna tiri subax wanaagsan asxaabay afka Soomaaliga dhawr jab weyn ku dhacay xitaa dabaaqa erayada waa la qalday sababtoo ah dhibaato weyn ku dhacday aniga intii tawartay waa saxa luqadda laakiin arinta dawagal weyn ay rabtaa hal ila waqaf waxba kama qawan karto dadkii hal abuurka waa inay wax ka qabtaan sidaasaana la iska rawaa wararta hal abuuradu waa dadaashay laakiin iyadu dhaawacay af Soomaaliga baaqan kaliya ugu geysatay yaa dhayi doona ariya abdi ku soo dhawaatada af Soomaaliga loo geysahayo waa badan tahay igaar kale oo heesayna wuxuu yiri dhawaataane sugeesti ana dhaabaca isyeelay dhidiciiraan dhexroori nimiya wali leeray gafinika gafiye guf adoyna garabka la saarade madaw adiga hadda ma waxay kula tahay in af Soomaaliga u dadaashay war af Soomaaligana ma imahatiri ku badadi warta af Soomaaliga wanaagsan magacyadu galay xawiiwa cabaale waxay tiri dhiwaata jirto haween subax iyo maalin mafdaca la ridooya war abdi ku soo afwa la iskala tagay xabaday maraysaa dagaalku waa cuslaaday waliba xiriyo dhul waa isku xiran yahay leeyri masaajical guud haday ku jabaana ummadu inay ka nasa doonto dibkooda la aaminsan yahay sababtoo waxay ciidan heli kareen waa isugu keeneen dhammaan gobolada kalena waa faaruqa leeyri oo waa ka soo aruursheen naaymiyaga alowna ay miidoohan inta leeday war koofur haday tagaan xataa looga harimaayo madow waxba halaalna warka naga sug war aan hel taliye shub halkaas u wadiyoonay waqooyiga email ku embassy ngara intaan in ku waabiyo haytan war xagaaga haday soo aadan lagaga harimaayo waxa leeyri agar kama tanaasulo ibliis naar ku dhacaya dabbihi xaqana aadanaha waa ka dhumiyay dhalaan kuwa ambiyay aafaday qayr ka dhigayaane muslim nabar ku dhaca iyo dilkiba wuu dhadhamayay dhamaantoodna abaalmarintu waa kula dhacaysay dhiig iyo colkii waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa la iska dhiciyay dhulku inuu la yeeraan rajaynkii ku dhuuntaba dhimashada hadiidina rag waa dhabar adeegay axmedow ma waan hore loo dhihin waa leeska dhici ya dhiblow dhalya dhaqaale ka dhaca waa leeska dhici ya dhiblow dhalya dhaqaale ka dhaca abdulow ninkii dhoof ku yimid ba geerudu dhibaysa waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doona ya dheegi jari warmadeeyo waxaad ka tagtay dhulka soo anigu malihi dhasha soo anigu malihi gumaysta dhacaya geeridu dhibaysa waqtigii dhamaayo wuu dhaqaaqi doona war Kalamaanay warmaysiine ingiriiska ra'iisul wasaare cusub loo magacaabay Theresa kala shandadena war rag masa dumar war nin asalkiisa Hindiga ka soo jeeda Afrikaana wax u galanaa la magacaabay war afar ka horeysay ay iscasishay hal muu hayaan wixii ay isku casileen war ninkan waa malqabeen cidii qaylisana lacag uu afku gelinaa war Soomaaliya maadu malaysay meesha ninkii qaarkiisa loo heero u soo qoyso adna yaan raala war ingiriisku waa yahan ra'iisul wasaare iscasil ku waashay macquubaday galena Hindiga ka tuurtay war asagii xaadkiisa waa malqabeena lagu yiri war nimayaha dad baahanaad arki jirteen meesha meel la luus la qaatad u malaysaan ariyaadaha war ma haysiin dagaalka shabaab gudoomiyaha Hiiraan Cali Jayto dhab ka yahay war madaxya shabaab haysato huba lacag waa ka hele war waxaan ku riyooday anigu gudoomiyaha Cali Jayto leh masxafan sameeynaya madaxyada shabaabka la sursuraya si aan jiilasha soo socdo looga sheekaynayo u arkaan war aan hal meel wal duugama meel mal suruda maraan lahaato war nimanka hotelkii Kismaayo ee Tawakal galay mid kamid ah madaxiisa askari soo qaatay kadibna wuxuu yiri gudoomiyaha Hiiraan Cali Jayte madaxana sidaay lacagan ka raba kadibna waxa loogu jawaabay Cali Jayte shabaab duurka lagu soo dilay madaxiisa raba ee mid magaalada inta soo galay isqarxiyo isdilay ma rabo ariyaadaha warkan hayga dhex galina gudoomiyaha Cali Jayte ballanto horay u qaaday waa fuliyo waa la wada arkayay beesadna rag shaqaysta meel fagaaraha ku siiyay
mid macaawisley ka mid ahuna wuxuu yidhi mugow lacagti qaatay 30 riyood nin kale maalin kasta ri shabaab ka qaadahayo inta ka soo tago hanala shaqeysto 10 kun ah ka badan 30 riyood kan eriga ka qaata madaxiisana u gooyaha ogaad war Cabdullaah Abwaanguura wuxuu yidhi jiilaalka ka baxo madaxyada ka soo jara jeebkana ka buuxsada jeyta waa ka dhabeeyay war dadka iyagoo abaartu hayso shabaab xoolaha waxay haysteen ka dhaceen ceeshi ay ka cabayeen ka duugeen oo ayagoo farmadow soo istaagay cali jeyta mashaq abuur u sameeyay war dalkaaga difaaca dollarna qaado miyaa la isku heli karaa war mashruuca cali jeyte in la ballaariyo ku fiicnaan lahaa marka intaan odagu jeebka ka maran dawladdu ballanqaadkaasoo kale ha sameeydo lacag meel ha u dhigto hawshaas kadib yaa arkayay waa ka dhace war shabaabkii laga cabsan jiray oo laga dhudhuuma jiray ma niman raadinayo lacag rabaa la arkaya war madaxooda ragbiil ku rabaa lagu yiri warnamiyow Soomaali baalka mundilimi dilootay waan hanu hunguri jeelaa lamba gerle ama madajay beledweyne laga argayay aryaanba gudoomiye cali jeyte waxaad kartaa mugga warnamada hadii aan xagga eegay oo xagga kala eegay hal qof oo xusul dheeru sooma xaadirin maanta xarunta ree kala maane xaynta aan tabayahay ma xarbigii al-shabaabkii xaggaasay u kaceen aryaadaha hadii uu beled joogo raggu waa isbartaahay burhaan soo anfar maaha warnamiya xusul dheeryaal hujini nagada jireena haajida manin wadaan aman dheer xaafadoogan isku seeno warmigay xujimo falantay xaaja falanta war anigu waxaan arkay oo la yaabay yo inta doon yari ku soo xiratay oo laba baabuur oo dhadhal laga soo dajiyay sawirro kala kacsan laga qaaday oo la rabo dekada garaacdo la maal gashaday in la isaga barajeeyo marka waxaan u maleeyahay ankoolkii galmudug inuusan halka ka sokayn war Cabdikuuso adigu way saaka kaftamaysaa dibka laga maray baabuurta soo dajintoodan war ka hayn aryaadaha samigay Cabdullaah doontaan maraakiibta lagu bareejeeyayo la yaabay wuxuu yiri hoo qof dhiikar qaba wax dhaanaan hadow dheedheensho waa dhibkiis qof dhiikar qaba wax dhaanaan hadow dheedheensho waa dhibkiis war anigu waxaan la yaabay igu sawirta beenta galmudug ma dawladda hore ka baratay war lagu barday ilka badii mid eegne war igu sawirta ugu darneed waxay ahayd nin laba xabo oo kuna ilmo barakacyaal ku wareejiyay kadibna ku soo qoray waxaan deeq gaarsiiyay barakacyaasha dhibanayaasha wararta gaboos isagu isreereebkii ururada Soomaaliland miyuu ka qayb galay aryaadaha war ma haysiina igu sawirto ayaamahan waa soo darsatay dagaalna waa tii lagu yiqiin inuu sir iyo xeelad noqdee waxaad maqlaysaa foogta magaalo Hebland ku wajahanahay ee saan u galna fiirsada mugaasaad arkaysaa ciidan sii socdo mid kaamara kula dhex jira meel Hebland marayna oo leeyahay muga ay arkay jidka iyo gala ee idila waleena qamayso war dadku araan bermeel hibeelka ku duulana ana baleena ka alay ruumba ku eta war cadawga la weerarayay waa cadow 15 sano tagtay hatta aan meel cidla lagu xama jirin markay arkay sida shacabku u dhiiraday muujinaysa war rasuulkeeni kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri al harb qud'a dagaalku waa qiyaamo marka nin aad tiro waa ku soo socda sidee ugu guuleysanaysaa adaaba wargeliye alla ilaahay kalamaanay waxaad aragteen anna waa arkay ayaanta igu sawirtan ebera weyla amaka ayaanta igu sawirtan ebera weyla amaka wararmaysiina gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaali Dr. Xabeebo lacag gudoonsiiyay lacagtaas oo asahay oo u kaashanayo safarkiisa caafimaad war gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu joojiyay canshuurtii guryaha laga qaadi jiray tii shabaab ama tii dawladda war albaabada xabsiga ha garaacinayo war kalamaanay war saxaafadeed degdeg oo dawladda ka soo baxayaan idin hayaahe iga dhageysta waxa lagu bilaabay howlgal la guuleystay oo iska kaashadeen sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa lagu laayay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan qawaariijta al-shabaab waxaana lagu burburiyay gaadiid u sidaysaanad ciidan iyo walxaha qarxa howlgaladan waxay ka dhaceen deegaanka masaajid Cali Gaduud iyo Burculo oo sidoo kale loo yaqaan Doolile oo ka tirsan shabeellada dhexe howlgalka koowaad waxa la fuliyay la yiri Sabti 22 Oktoobar waxaana lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shirayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad waxaana lagu dilay la yiri 22 shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal oo kamid ahaa Cabdullaahi Cali Caraale howlgalka labaad waxa uu dhacay la yiri 23 bisha waxaana laga fuliyay nawaaxiga magaalada masaajid Cali Gaduud goob tilmaameed gaar
u ahayd nisa waxaana lagu dilay sida la sheegay 11 ka tirsan shabaab iyadoo lagu dhaawacay in ka badan 30 kale howlgalka saddexaad uguna xooganaa waxa uu ka dhacay sida la sheegay xalay deegaanka Burculow dadka qaarna u yaqaaniin Doodile masaajid Cali Gaduudna u jira 10 kiiloomitir dhanka galbeed halkaas oo fariisin weyn u ahayd shabaab waxaana goobta weerarka ku sugnaa kooxda jabhadda oo uu hogaaminayay Musab Cabdulla Sane iyo horjoogayaal kale waxaana la sheegay inay qorsheynayeen weerar ay ku soo qaadaan ciidanka qaranka iyo xaq u dirirka u taagan kacdoonka ka dhanka waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri weerarada xalay dhacay midka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu yahay BG oo ay u saarnayd rasaas iyo saanad ciidan halkaas ayaana si guul ah loogu burburiyaa la yiri gaarigaas iyo agabkii saarnaay weerarka labaad sida war-saxaafadeedka lagu sheegay isla xalay dhacay daqiiqada kadib waxaa lagu beegsaday gaari kale oo BG ah oo ay saarnaayeen walxaha qarxa oo aad u xoogan waxaana qaraxaasi laga maqlay deegaano fog isagoo saameeyay in ka badan 1 kiiloomitir dhul gaaraya wuxuuna baabi'iyaa la yiri dhammaan shabaabkii meesha kaaga dhawaay waxaana meedkooda la aqoonsaday 9 ka mid ah inta kalena waa gubteen oo waa la aqoonsan waayay dhaheen weerarka afraad ee isla xalay waxaa lagu beegsadaa la yiri maleeshiyaadkii ka farxaday weeraradii hore ee ka dhacay Burculow kuwaas oo iyagoo is urursanaya la baabi'iyay sida saxaafadeedka lagu sheegay dawladdu waxay aaminsan tahay la yiri in tirada dhimashada ee qawaariijta ka soo gaaray howlgalladaas kor u dhaafayaan 100 waxayna sheegtay inay wali meedkooda urursanayaan iyagoo saaka oo kaliya geeyay deegaanka Alkowsar oo u dhow aadan yabaal meedka 33 iyaga ka mid ah howlgalkan waxaa suuro geliyay sida dawladdu ay sheegtay xog dhameystiran oo ay heshay hay'adda nisa oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga waxa ka go'an bay tiri ciribtirka maleeshiyadka qawaariijka ee al-shabaab dhalinyarada ay qaldeenna waxa ay dawladdu ugu baaqaysaa inay isa soo dhiibaan si ay naftooda uga badbaadiyaan howlgalkan wadajirka ah war Cabdikuusow goormaad wasiir al-cadaalad noqotay war saxaafadeedka shirka jaraa'id u qabtay cadaalad aan ku soo koobay war cadaalad aman dheer baa furunta ku nagaday ay sheegi warkaas war madayga waa falantahay ma wasiiraad leedahay shaqadiisa u sheegay war ciidankii ceelbuur u socday maxaas ma ka baxeen war kuwii xara dheer u socday ada kibri ma ka baxeen war haani eelleeran socdeen adale ku tabeena war kuwii yiri go'doonkan ka qaadaynaa bakool bay dhabo ma ka baxeen war ma haysiine maalmahan seefta madaxweyne xasan sheekh galkay ka siiban tahay yees cadaalad iyo nabad noo argagixisay ma ku qoran war subax walba markaad soo toosto hal la toogtay laba la toogtaad maqlaysaa taako u dambaysana laba shabaab la boobsiyay war shabaab dad laayo toogasho lagu xakumay 3 sano maxay xabsiga ugu jireen war madaxweynihii hore dal xabs daan laga yaqaan toogasho lagu degdegin ka yimid waxba la qabtay waxba la qarxiyay waxba la dilay badana howlgala la jira badana عمرو جوجا حاوي عقله عرضينا جوجني cisbitaalada wadankeena keeba u cajiibsan casriga ugu fiican cadayn baan u hayaayo alcaasima la yiraahdo roolaya dhalaan cid kasto maanta joogta shaqdo u codaysay caaqil baa tahay am ahaan bulshadayna cula bal cula dhagihiina aan ku casuuma maqalkiina isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima